waxaa jirta dhibaato weyn oo khusaysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhibaatadaas waxa weeye waxa soo baxay shirkado bini'aadamka ka baaxmushtareeya مثلا شركة واحد إلى مجفي والله حريري وحي يقول هذا ملكها جان لقى هالسنة شركة مجفي أنا ملكها جان لقى هالسنة وحنو كادوا إننا نطلع بحصة لعقت عمرك بحسوا الكاجا وكوس ديننا. اسمه حركة دولة النرويج إياه ويلك سوق قلة يا كعوي. اسمه حركة ويلك يدو وحي كعوي شاريد الصوماليات ومركها وجاننا باش. شركة داس لانيرة الصومالية أي كقادة صوماليا لعق الآن بيكون قادة وحي كقادة صوماليلاند بوتلاند قلب مدوق حبيني يحب أرزونا والجماعة الزمراب هيران inta aan huba biiri magaalo kastana waxa uu fadhiyo wakiilo shirkadaas dhalinyarada Soomaalida u ururiya oo Soomaali ah dhalinyaradu marka ay dhamaato oo hadda ay dhalinyaradu dalka ka dhamaato si sahlan dalka loola wareegi doono soo hadda ku socdo sababtoo waxa hadda socdo dadkii aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha iyo iskoolka dhiganayay ka bacdi waxa soo haraya ama oday ama niman aqoon lahayn ba soo haraya dalkii marka waa u dhaxal wareegaya marka aad baan baashan ugu mahadinaynaa inuu min yahay marka sanin xaydan hawlaha Soomaalida Norway waan ku mahadsan yahay war cusmeedii ayaa waxa hor fadhiya wax garad Soomaaliyeed oo ka tirsan Soomaalida degan Norway oo uu garab fadhiyo xildhibaan Baashi Muuse Soomaalida Norway wax garadkooda ayaa waxay ka dhiidiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo la sheegay in lagu haysto Liibiya iyo Khartoum iyo agaarkeeda kuwa oo laga ganacsado groupkan ayaa waxay la xiriireen dawladda Norway ayagoo kaashanaya xildhibaan Baashi Muuse waxay noo sheegeen guddigani ka kooban waxgaradka Soomaaliyeed ee degan Norway in ay u digayaan Soomaalida Norway oo ay jiraan kooxo ka ganacsada dhalinyarada ka imaanaysa Soomaaliya kooxdan ka tirsan waxgaradka Soomaalida ee degan Norway ayaga ayaa noo faahfaahin doona sida ay wax u dhaceen waxaan ku bilaabayaa Maxamed Axmed Carab oo wax yar nooga taabanaya dhibaatada sida u taabatay isaga بسم الله الرحمن الرحيم سأل شيء سبب واحد جرت دبته وين وخصيصة أمضى الصوماليات أردن دبته أصبح وحصاب حي شركة بنهارك كبع مشترية مثلا شركة واحد إلى مجفي مركا دبته جرت واحد تدك الصومالي تشوي لما يريد الصومالي تشوتي بعض الصاحة على فيه أردد أسكول كأسعتي يو أسكول كأسعته أي الله سوق هذا أيضا واحد العقل لقى قاعدا أردد وبوقتي سيدته ودريس كأسكول كشن baa laga soo qaaday Soomaaliya waxa la keenaya Ethiopia ka bacdi wala soo dhaafay la Suudaan saxaraha la geenaya adiga ku dhacday arigaas aniga arintaas way ugu dhacday oo wiilkaygii baba hadda xiran oo ka soo ay ka soo qaadeen Ethiopia had sabab ka soo qaadeen anigu wax wara kamaan ahayn ma ogeyn markaa isaguna inuu sheegin arday buu ahaa jaamacad dhigta ka bacdina saasoo kale loo soo qaaday isagoo waqtigiisa sita baa laga soo qaaday sababa waxaan ku war helay isagoo la keenay saxaraha Liibiya markii aan warka helay la sheegay waan la xiriiray waxay igu yiraahdeen wiilkaaga aan laga haysana waxa shirkadda Magafan waxay wiilkaaga aan laga haysana waxaanu ka doonaynaa inaad lacag bixiso lacagta markaad bixiso wiilkaaga waa ku sideynayna marka lacagtu waa imsaan ku leeyahay waxay igu yiraahdeen lacagtu aad bixinaysaa waa 3500 aad bixinaysaa 3500 markaad bixiso baanu gudbinaynaa annaga farahayaga uu ka baxaya kadib way suurto gal weeyday in magaranaysaa communication-kii nimanka xiriirkoodii baa ugu yara adkaaday oo waxaan joogay Norway Oslo joogay marka xagga telefoonka ah waxaan markaa go'aan ku gaaray inaan tago Khartoum si aan toos magaranaysaa aan uga xiriiro oo lambarka khadku ii furmo waan ka tagay Oslo waxaan tagay Khartoum markii aan tagay baan la xiriiray nimankii oo telefoonkii markii hore iga xidhnaa baa ii dhacay oo telefoonka haystaan wuxuu yahay Torayo waa adag yahay marka Yurub uu ka baxay khadka Yurub uu ku yara adag yahay sal ajligeed markii aan Khartoum tagay baan la xiriiray markii aan la xiriiray iyagii waxay igu yiraahdeen wiilkaaga aan laga hayna lacag baan ka aragnaa wiilkaagana wuxuu ku xidhan yahay saxaraha Liibiya saxaraha u dhaxeeya Liibiya iyo Suudaan lacagtu waa imsaan ku leeyahay 3500 bad bixinaysaa biilaan hadeer
3,500 adigu waxaan ku yiri wiilka ii soo celiyo lacagta waa bixinaya kadib waxa ay wiilkaaga anagu ma soo celin karo laakiin waa tijaabinaynaa bal adigu naga warsug muddo 10 casho ka warsugayay ka bacdi way igu soo warceliyeen waxay yiraahdeen wiilkaaga ma soo celin karo marka laakiin lacagta kariya gardaraba waad bixinaysaa mar walba waajib ay kugu tahay inaad bixiso lacagtaas haddaad doonayso inaad aragto wiilkaaga oo nool haddana doonayso inaad ku aragto سال أجل يد وحن بحيي صدقكم يشنتي بقول بن بحيي ما دام أنا يقول كي يقص العين كان خرطوم وحيقول إن واحد مسديرين عندنا عائلة ليبيا هذا بالعكس ما كان بحيي ما يصيدين واحد كوريتشي ينقل يقرأ والليبيان أو اسمه صحاري كواس كلنا ويرصوا هذا نوع يقول إن العقب على جارها لبقنا العقل لبقنا وأنا بالحصان markaasaan ku soonig lacagta bari bixiyo lacagtuna maxay tahay laba qaybood baan u kala nahay bay yiraahdeen qaybta Suudaan iyo qaybta Liibiya bay kala yihiin marka qasab ay kugu tahay inaad haddana lacagta bixiso $2,000 adigu $2,000 waa bixiyay markaan $2,000 bixiyay ay soo kaxeeyeen waxa la keenay qarka Tripoli markii la keenay meel tuulo ah waxay u yiraahdeen adigu telefoon baa la soo diray wiilkaaga annaga haysanaba hadinayna kuwa saddexaad marka $500 baan wadana ka rabnaa adigu $500 waan diray iyadana weelkii markaa waxay keeneen caasimadda gudaheeda Tripoli baa la keenay markii ay Tripoli gudaheeda keeneen meel bay dejiyeen dadka ay ku ururiyaan oo waxa jira meelo dadku ay ka baxaan oo doonyaha laga raaco oo dadka taariikhda ay ku ururiyaan ka bacdina ay lacag kale ka qaataan doonyaha ku saaraan marka guriga gaar ay kireysteen guryaha dadka ay ku ururiyaan marka wiilkii halkii bay geeyeen wiilkii baa la hadlay waxaan ku yiraahdaa badda ha aadin doonina ha raacin waxa ku xareysan sharci waxaan rabaa inaad nabadgelyo ku timaado Norway okay ya ka caawiyay isku xilka dawladda Norway iyo wiilka soo kusoo galaya ka caawiyay isku xilka wiilka iyo waxa iga caawiyay jaaliyadda Soomaaliyeed oo markaa hogaaminayo Baashi هاي مركاين بايق عاوي قابتك عاوي دي waxa weeye markaan u sheegay dhibaatadii niman asxaabtayda hadda nimankan ila fadhiya gaas Ahmed iyaguna waxay la saxiireen baasha markaa arrintii loo soo bandhigay kadib markii loo soo bandhigay waxaan xawilay isaguna uu noo horseeday inaan la xiriirno miidiyaha marka arrintii miidiyaha loo geeyay miidiyaha markii loo geeyay TV-ga waa laga soo daayay sabab ku maranay oo daawateen marka arrintaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo haysata waa dhibaato weyn oo soo kordhay ummadda oo u baahan in wax laga qabto oo laga hortago maadaama dhibaatadaas jirto wax weyn dadka inta meesha ku dhamaanaysa inta baddu laga soo inta gacmaha laga jarayo inta kaliya laga baxayo waa aad u badan marka waa dhibaato u baahan in Soomaali ka hortagto oo la qaban karo laga qabto kaas wuxuu ahaa Maxamed Axmed Maxamuud Carab oo wiil loo haysto Liibiya iyo agaarkeeda dhibaatada uu ka dhawaajiyay Maxamed Axmed Maxamuud Carab waxa si fiican u yaqaana oo ka warqaba Xasan Abshir Gaas oo asagana ka digaya dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed shirkadaha waxaan ka ganacsadana si fiican u yaqaan Xasan shirkadda warbixin ma nagsi kartaa arrimaha soo socda la sheegay afduubkan shirkadaas waxaa la yiraahdaa Magafa aniga markii igu horeysay wiil walaashay dhashay oo aan gaalkacay ku ogaaba wuxuu igala soo hadlay magaalada Wajaale wuxuuna igu yiri abti waxa isida annagoo dhalinyaro badan oo 210 gaaraya shirkadii Magafa waa markii koobaad oo magaca igu horeysay haddii aan weydiiyo shirkadaasi waxay tahay wuxuu yiri shirkadaasi dhalinyarada Soomaalida ayay ka qaadaa Soomaaliya lacag la'aan bay ku qaadaa waxay ka qaadaa Somaliland Puntland Galmudug xubin iyo xeeb Arzuna wal Jamaaca Dhuusamareeb Hiiraan inta aan hubab yiri magaalo kastana waxa uu fadhiyo wakiilo shirkadaas dhalinyarada Soomaalida u ururiya oo Soomaali ah qofka waxay ka qaataan $1,200 markaas waxa la maray ilaa la geeyo dalka xuduudda Liibiya iyo Suudaan u dhaxaysa lama weydiiyo ilmaha la qaadayo lacag lama weydiiyo ma la weydiiyo lacag markii xuduudda Suudaan la geeyo
ayaa qof walba la yidhaahdaa la hadal qaraabadaadii waxaa sharuud ah ilmaha laga qaadaya Soomaaliya ee la leeyahay waxaa lagu geynayaa Yurub magafa macnaheedu waxa weeye inaad Yurub tagayso oo baasaboor Yurub helayso maadaama af Soomaali aad ku hadasho waa arrin cad shirkadda ku ballan qaadaysa Yurub ma rabtaa baa ilmaha la leeyahay markii la geeyo saxaraha ayaa la leeyahay lacagta inta leeg baa kugu xukuman hadduu bixin waayo shoolada baa lagu fariisinayaa saaf baa dhabarka lagaga garaacayaa kaliyaha iyo beerka lagala baxayaa sidii la rabaa laga dhigahayaa waa la laayaa arrintaas waxaan uga digayaa mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya waxaan kale uga digayaa dadka Norwejiga ee Soomaaliga ee degan dalka Yurub khaasatan dalka Norway inaysan u fududayn ka ganacsiga dhalinyarada Soomaalida shirkadda u dhiganta burcadbadeedda ee dadkii Soomaalida ay xaalufinaysa u bixi soo koriyay dadkii jaamacadaha dhiganayay meel kasta u daba gashay inay ka digtoonaadaan oo lacagta ay sheekato magafi markay dhalinyarada soo marin habaabisa aysan bixin baan mujtamaca Soomaalida ku wargelinaya guri ku yaal Norway oo Soomaali degan tahay oo aan telefoonka magafa laga soo wicin iyadoo ilmo u qaraabo leeyahay magafa haysto ama walaalkiis ama ku abtiga u ahaa ama kii adeerkii dhalay ma jiro waynu iswada ognahay waa in la badbaadiyaa ummadda Soomaaliyeed waxaan mahad u celinaynaa Ilaahaygiina abuurtay waxaan anigu markii aan xanuunkaas arkay wiilkan abtiga u ahaa waa la hadlay Soomaaliya ku celiyay waa 35 jir waa mutacallin sheekha oo kitaabta raacdo oo reer iyo caruur leh saasa maskaxda looga dhaqay waxa la leeyahay dhalinyarada jannada Ilaahay baa ku haya laakiin nolosha adduunka kaamil ah ayaa lagu geynayaa waa Yurub af Soomaaliyeed ku hadashaa baasaboorka banaanku ku yaala guri baa lagu dejinayaa lacag baa lagu siinayaa ka soo kaca meesha sida saaxiibkay sheegay iyagoo iskuulada iyo jaamacadaha la dhiganayaa basaska waxa laga keenaa dadka Somaliland Puntland xubin iyo xeeb ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee jigjiga meel kasto qof Soomaali af Soomaali ku hadla joogo yaa dhibtaasi ka jirta waxa naga caawiyay oo inaan meediyaha ay u gudubto caawiyay ninka wiilkiisa la haysta iyo annaka ra'yigayagii meel aan marinaba aan la'ayn xildhibaan Baasha Muuse oo lagu yaqaan Soomaalida inuu u danqado danaheeda ka shaqeeyo loo doortay nin Soomaali dhaxyaal u ah waxaan leeyahay Baasha waa mahadsan yahay Soomaali waa in la badbaadiyaa ceelna uma qodna cidna uma maqna waxa weeye isaga ayaan ula imid ra'yigii anoo shaqadeeda ku jiraan la xiriiray waan ka codsaday inuu nala kulmo haddana rag badan oo kale saaxiibadayaan la kaashaday magaaladaas aniga ilaa 35 jeer baa layga qaaday lacag magafa la siinayo oo qaab qabiila oo qaaraana laakiin ilaa wiilkii walaashay ay ku timid arinta hoosba uma eegin aynu balaada iswaraysan magafa inakoo dhan bayna xukumaa isaga dawladdeena waa shirkadda ka ganacsiga dadka Soomaalida burcadbadeedii bay ka xuntahay al-shabaab bay ka xuntahay dagaalkii taliya kooxyada ay ka xuntahay dawlad la'aantay ka xuntahay masiibo kasta oo Soomaaliya ku timid waa midii ugu xumayd ee Soomaaliya ka timid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaasi wuxuu ahaa xasan abdulqaas waxaana wareysanayay xasan tol warcusub.com haddaan u gudubno xildhibaan baashi arrinkan qabsaday walaalkeen maxamed axmed maxamuud carab oo adiga iyo gaas iyo waxgaradka Soomaalida Norway ba aad ka qayb qaadateen inaad wax ka qabatiin sidee wax uga qabateen warbixin yar ma naga sii kartaa see gaar ahaan adiga baashi wax uga qabatay arrinkaas bismillaahir rahmaanir rahiim horta runtii arrintan waa musiibo ku habsatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta wax joogtay gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Somaliland marka wax laga hadlayo musiibadu ma aha in la sheego laakiin waa arrin xaqiiqadeedina la hayo cadeynteedina la hayo inay tahay dhibaato taabatay ummadda Soomaaliyeed xasan arrintan walaalkeen arab wuxuu noqonayaa tusaale laakiin arrintu way ka qoto dheer tahay inta la moodayo waxaana si fiican u faahfaahiyay gaas markii ay ila yimaadeen waxgaradka qaar kamid ah waxgaradka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway arrintan iyada ah aniguna xildhibaan runtii waxay noqotay inaan xil iska saaro waan ka danqaday waan ka murugooday aniga qudayda dad marka fil lacagta loo qaadayo kale waa la weydiiyay horena waa la ila yimi
marka waxay noqotay in aan bal marka ugu horeysa aanu ka wada tashano wixii la yeelay waxaan abaaray xagga meediyada markii aanu la xidhiidhnay xagga saxaafadii baanu gelinay dhibaatadii waanu gudbinay oo waxaan u sheegnay dhibaatada baaxadeeda intay la eg tahay iyo waxa ay tahay waanu runtii ku faraxsannahay in maanta shalayto oo ah maalintii shalayto in la soo daayay oo ahayd 30kii bisha oo bishan May aynu ku jiro in laga soo daayay TV-ga la TV2ga lagana daawaday taasi waxay abuurtay discussion iyo dareen aad iyo aad u badan oo ballaaran iyo shucuur ayaa abuurtay marka runtii dawladdii Norwayna way gaadhay marka qaabka labaad wuxuu noqonayaa anaga kooxdayada anigu xildhibaanaha halkan kaga harimayo waxaan ballan qaaday inaan ka gungaaro haddii ilaahay idmo oo jaaliyadani halkan ay mas'uuliyadda qaadato waxaan ballan qaadayaa insha Allah inaan qof dambe oo Soomaaliyeed oo Norway jooga magafa lacag ka qaado waa inaan ku ballan qaadnaa anigoo la kaashanaya dawladda iyo hay'adaha khuseeya talaabada waanu qaadi doonaa waxaanu kaloo insha Allah ku dadaali doonaa in aanu kicino jaaliyadda halkan joogta in wacyigelin la siiyo inay fahmaan dhibku intuu leeyahay inay joojiyaan lacagta bixinayaan oo si arintan loo joojiyo waxaanu insha Allah ku dadaali doonaa inaanu hadana isku xidhno maamulada maaragtay Puntland iyo Somaliland oo ay dhibaatadan si gaar ah u taabatay oo hore loo sheegay in aanu iyagii dawladda iyagana isku xidhno oo isfahmaan gaar ahaan dhinaca Puntland maanta waxa ka jira runtii aan ka daawaday inay kaceen magaalooyin badan sida magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso inay kacdoonna badan ka bilaabmeen dhinaca Ceerigaabo iyo Baran inuu ka dhaceen dhaqdhaqaaqyo oo dadkii kaceen inay soo bixeen hooyooyin Soomaaliyeed oo laabta ku siitay ilmahoodii oo dhintay waa arrin laga murugoodo runtii anigu taas indhahayga ayaan ku arkay marka in gobolada kale ee Soomaaliyeed ee arrintan jooga iyaguna ay gadoodiyo caynkaas iyo kacdoon ka bixiyaan waa in marka la ogaadaa meeshu ku jira waa in loogu galaa in magafe oo la iska qabtaa marka insha Allah capacity building in loo sameeyo oo wacyigelin la siiyo oo waxay u baahan yihiin aanu ogaano ayaan ku dadaali doonaa haddii la haydmo labada dhinac ee Somaliland iyo Puntland oo gaar ahaan imka si toos ah u taabanayso in iyaguna helaan bal xog laga helo la fahmo ayaan insha Allah aniga marka roolkaygu wuxuu noqonayaa koow in arrintan marka hore wacyigelin dhacdo isla markaana maamulada hadda dhibaatadu haysatay meesha ka dhacayaan xogagaalka iyagana la xiriiro wixii marka ay u baahan yihiin ama aqoon ah ama hab kale oo xirfada in la siiyo waxa kale oo iyadana runtii iga go'an oo insha Allah ku dadaali doona in maanta inanka yar ee maaragtay in carab oo ilmihiisii maaragtay beerkiisii maanta uu ku xiran yahay meel oo aan maanta la ogeyn waxa uu ku sugan yahay jeelna ku jira insha Allah in jeelka inta laga soo saaro uu si nabadgelyo ah ku yimaado Norway haddii ay taasi suurtagal weydana insha Allah uu dalkiisii hooyo dib ugu noqdo marka runtii taas ayaan doonaynaa laakiin waxay ku imanaysaa farkii fool ma dhaqdo waxay u baahan tahay wada jir waxay u baahan tahay karti waxay u baahan tahay xilkasnimo iyo in Ilaahay la kaashado marka xasan oo sidaas ayaan insha Allah ku daali doonaa kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Baashi Muuse oo Soomaalida Norway u dooratay golaha deegaanka baarlamaanka Oslo oo had iyo jeer u taagan caawimada Soomaalida Norway bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan u soo jeedinayaa marka ugu horeysa arintayda koobaad tanjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Liibiya oo aan ku baraarujinayo horta dadka uu shaqeynaya waa dadka Soomaalida xilka waxa loo saaray waa dadka Soomaalida dad waxa jira aqduunkiina aan jirin aakhirada xagga hayna aan gaarinin dadka xabsiyada Liibiya ku xiran ee aan waalidkooda ka warhaynin oo ayagana dhibaataysan inuu u tago magacyadooda soo qaado oo ay goboladii ka yimaadeen dadkoodii ku wargaliyo على الأقل إن لأوجد إن دتك نبدون يهين وتتابع عن كعصين سفير كالصومالي في ليبيا وحبسية تبع طلبات وحنا كعصين دولة الصومالية إن أريدة عالم دوينها قاسيسو سيدت كان لود بادين لها تن صدحات أمد الصومالية اللي يروح باقي هيا وحلو خمار النفط معهن تل كان إن اعتمادان لمديدنا لكن إن أذيك إذا لما يقولوا ليجي نعنون لوجه إن جويو بيرك اللي ينقلبحه آخري أدون من مجا كويلا ميسان مركا إس أرورية أو كتلا جلا مركا صوب حيسان إن هرت دتهين وح عجيب إثيوبيان كإيرتريان كساتح $100 بلاقي قاطع ماش دتك الصومالي ده لحكون $1 يلقوا بايع مركا تاسنا وحي كده ما نسا أدين كون سكو كرسوني مركا سكو ده إن المركز أدونك أسكو حراتان أو أد ماش المريسان بعد النمذج موجسان waxaan kaloo ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed sidii dadka loo badbaadin lahaa inay soo jeesato
oo wax ka qabato oo la isku mid noqdo ilaahna waxaan ka baryaynaa in rabbiga dalkeennii inoo hagaajiyo oo aynaga laynoo soo qaxo laynoo soo shaqo doonto axmed yaa in ka caawiyey arrinkan qabsaday walaalkeen carab yaa in ka caawiyey halkan Norway bismillaah markii aan la kulannay dhibaatada tan aan maqalay waxaan midacsanay dadkii deegaankan joogay ee Oslo yaa ugu habboon oo meesha tan aad kala kulmi kartaan waxaan noo soo baxay Baasha Muuse oo aan ku naqaanay markasta inuu dhexgal iyo wada shaqayn la leeyahay dhammaan bajaaliyada Soomaaliyeed markaan u nimidna si fiican ayuu noo soo dhaweeyay hawshii sidii aan ugu tilmaanay ayuu u qabtay ilaahna waa ku guuleeyay marka wuxuu gaarsiiyay xeer horta bal marka ugu horeysa dhowrka milyan ee Norwegianka ama dadka ku nool in arrinta wada gaartay dawlad ahaan iyo shacab ahaanba wax ka qabadkeedan ilaahay bay u taalaa waxaan kaloo ka codsanaynaa inta harteen inuu israaciyo waxaan kaloo u soo jeedinahay dhammaanba ururada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed maalinba toobig baa jira inay toobigan la isugu yimaado waxa kale inta la iska dhigo toobiga kan laga wada doodo dawladda la fahamsiiyo dadkii la fahamsiiyo ma ahan anagu Norway baan ku noolahay inaan dad kalena yaan la keenin dad badan baa hadda laga soo qaadaa dhadhaab meel badan baa dad laga keenaa dad badan baa dalka diyaarad iska dhiiba annagu waxaan ka hadlaynaa ma ahan xaraan ma in dalkan la yimaada sidii macquula ku imaada laakiin naftiina ha qaribinina oo meelan ma sameeyna ku tuurinina waalidkiin dhibaato iyo muruga u soo jiidinina dalka laftigiisa xataa waa la isqaybiyaa dhalinyaradu marka ay dhamaato oo hadda ay dhalinyaradu dalka ka dhamaato si sahlan dalka loola wareegi doono soo hadda ku socdo sababtoo waxa hadda socdo dadkii aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha iyo iskoolka dhiganayay ka bacdi waxa soo haraya ama oday ama niman aqoon lahayn baa soo haraya dalkii marka waa u dhaxal wareegaya marka aad baan baashan ugu mahadinaynaa inuu yahay markasta nin haydan hawlaha Soomaalida Norway waan ku mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Beyre oo hawada fariin u marinaya dawladda Soomaaliyeed safiirka Liibiya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba Soomaali weyn sidii wax uga qaban lahaayeen arrinka Axmed waxa wareysanayay Xasan Tool warcus.com